Tanjire Nicholas Kay ayaa sheegay in doorashadii Puntland ay ahayd mid ku dayasho mudan oo ku dhacday si nabadgelyo ah isagoona ka dalbaday madaxweynaha cusub ee la doortay inuu qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo ammaanka Puntland. Tanjire Kay ayaa uga mahad celiyay madaxweynihii hore Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole sidii sharafta iyo mas'uuliyadda lahayd ee uu wareejiyay xilka markii la soo gabagabeeyay doorashada isagoona xusay inuu hawlo badan u qabtay Puntland intii uu xafiiska joogay. xildhibaanada Puntland waxay dhowr maalmood ka hor muujiyeen mas'uuliyad weyn oo ku dayasho mudan. Puntland waxa ka dhacday doorasho ahayd mid cad oo ay nabadgelyo iyo mas'uuliyad ka muuqatay ayuu yiri Tanjiraha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay Ambassador Nicholas Kay. Tanjire Kay oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu yiri waxaan kula talinayaa madaxweynaha la doortay inuu si dhaqsi ah u qaado tallaabooyin lagu xaqiijinayo ammaanka gobolka. dhammaan ciidanka iyo dadka ku nool Puntland waxaan kula talinayaa inay la shaqeeyaan maamulka cusub waana inaan la boobin hantida shacabka ayuu yiri Nicholas Kay. Tanjiraha qaramada midoobay ayaa ka digay in la carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida Puntland isagoona xusay inaanay shakhsiyaad gaar ah isku dayin inay xasilooni darro ka abuuraan Puntland. qaramada midoobay iyo saaxiibadeed oo ay ku jiraan IGAD midowga Yurub waxa ay sii wadi doonaan kor kala socoshada xaaladaha Puntland iyo dadaalada lagu taageerayo maamulka iyo shacabka Puntland xilligan adag ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay. si kastaba hadalkan ergeyga UN-ka ee arrimaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalin ka hor laga baxay madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso iyadoo laba qof ay ku dhaawacmeen israsaasayn ka dhacday halkaasi. محمد بلقيل صومصات مقالة مقدشو.